wacan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. barnaamijkeenan toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa dagaalada ka jira qaybo ka mid ah Hiiraan oo saameyn xoog leh ku yeeshay waxbarashada gobolka. Dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Bay oo hoos u dhigay nolosha iyo ganacsiga yaryar oo ay lahaayeen dad danyar ah iyo warbixin aan idinkaga hayno in ka badan 3,000 oo qoys oo ka faa'iideysanaya biyo-gelin laga sameeyay xeryaha dadka soo barakacay ee ku yaala Baardheere. aan ku bilownay dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa saameyn ku yeeshay goobaha waxbarashada ee gobolkaasi ku yaalay iyadoo ay xirmeen guud ahaan dugsiyadii wax laga baranayay. Sidoo kale waxaa jiray in dagaaladu xitaa ay saameyn ku yeesheen internetka oo muhiim u ahaa ardayda oo gabi ahaanba meesha ka go'ay. Inkasta oo ay rajeynayaan in dib loo furo xarumahooda waxbarashada si aysan uga harin ardayda qaarkood oo sanadkan galaya imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda. Shukri Baryare ayaa soo jeedinaysa warbixin ka hadlaysa. Dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Hiiraan tan iyo bishii la soo dhaafay una dhaxeeyay ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda oo isku saf ah iyo Al-Shabaab ayaa saameyn dhinacyo badan leh ku yeeshay dadka ku nool aagagga ay ka dhaceen dagaaladu iyadoo degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ay xirmeen dhammaan iskuuladii ku yaalay sabab colaadda la xiriirta. Xaliimo Faarax Keenaan oo da'deedu 19 sano jir tahay ma aadin iskuulkii ay dhiganaysay ee Maxaas tan iyo bartamihii bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar maadaama ay degmadu gashay xaalad cakirnaan ah oo sababtay in ay sii socon weydo daraasadda. Waxay aad uga walwalsan tahay ilaa iyo inta ay qaadan karto in dib loo furo 5 iskuul ee ku yaala degmada Maxaas oo uu ku jiro midkii ay dhiganaysay maadaama ay sanadkan tahay fasalka 12aad ee dugsiga sare lagana rabo in ay galaan iyada iyo ardayda kale ee fasalkaas la dhigata imtixaanka dowladda dhexe ay soo diyaarinayso. Xaliimo ayaa Sooma u sheegtay in rajadeedu tahay ka soo muuqashada kaalmaha hore ee imtixaanka dowladda laakiin haddii xaaladda degmada sidan sii ahaato ay adkaan karto ka dhabaynta hamigeeda ay hadda leedahay balse ay wado dadaal la xiriira inay dib u akhriso casharadii ay soo qaadatay. Waxay xustay in maadaama ay heshay waqti badan oo guriga ay ku joogto ay qoyskeeda ka caawiso shaqooyinka guriga oo markii hore aysan qaban jirin maadaama ay ahayd ardayd waxbarata. waxaa ka mid ah ardayda dhigato dugsiga dhexe ee sare ee Maxaas. waxaa sanadkani ahay fasalka 12aad. waxaan rajeynayaa in imtixaanka shahaadiga ee qaadaysa dugsiga sare aan ku guuleysto weliba ka soo muuqda kaalmaha hore. inkastoo ay saameyn ugu yeelatay colaadda ka jirta dalka, iskuulkii waa la xiray. waxaan maalin walba dib u akhriyaa iskuulada cashirkii lagu soo dhigay maadaama aan guri joogto noqday. Inkastoo hadda inta badan goobihii dagaaladu ka dhaceen ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka, haddana deegaanada ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan maahan dhibaatooyinkii shacabka ka soo gaaray colaadda 2 bilood ee la soo dhaafay kuwa waqti dhow ay ka soo kaban karaan. Maxamuud Cali oo ka mid ah ganacsatada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa uu bartamaha magaalada ku leeyahay baqaar weyn oo lagu iibiyo raashinka qutul daruuriga ah laakiin hoos u dhac dhaqaale oo aad u xoogan ayaa ku yimid tan iyo bilowgii bishii 9aad aynu soo dhaafnay maadaama uu waayo qof lacag wax kaga iibsada degmadana ay tahay mid ku xiran socoshada ganacsiga lacagaha lagu qaato moobilada isgaarsiintana ay hawada ka maqneeda. waxa uu sheegay in 2 bil ee uu dagaalku socday uu bixiyay adeeg u dhigma qiimo ahaan 9 ilaa 12 kun oo dollar. lacagahaas oo ilaa hadda ka maqan maadaama ay qaab amaah ah ay kaga qaateen macaamiishii ku xirnayd sanadaha badan. Maxamuud ayaa Sooma u sheegay sixir ahaan uu raashinka aad qaali ugu noqday magaalada Maxaas oo xitaa nolosha ka jirta ay ciriiri noqotay maadaama dadka ay isugu darsameen abaar, colaad iyo maciishada oo aad sare ugu kacday.
baad ku qorto ma ahina iska furo ma ay meesha sababta lacagna ma shaqeyso meesha xaq ku qanacsanada iska furto sarkaca aad iyo aad weyn jiray kabas oo tusaale ahaan haafka oo ambisheeg oo rubaca bariiska dilagaday isheeg $9 wuxuu tagay ilaa $15 ka badan uu tagay waayo wadooyinkii ayaa xirmay isgaarsiinta shaqeeyla shabaabkii ayaa wadooyinka dhama xiray wax soo galay wax ka baxa ma lahayn in muddo saas ayuu sarkac xoogan ku imaaday wallahi horta meel oo lacag shir Soomaaliya ka shaqeynay rafaadkeeda ay leedahay oo ateenadan ay ka maqan tahay dadkiina waxay u baahan yihiin hayso rafaadkeeda leedahay dhalinyarada degmada Maxaas marka laga soo tago inay xirmeen dhammaan goobihii waxbarashada ee degmada waxa ugu sii darsantay inaysan jirin ateeno iyagoo inta badan shaqaalahan ku dhex ah magaalada haddana waxaa meeshii ka baxay internetkii oo waqtigooda ugu badan ku qaadan jireen Farxaan Cabdullaahi Cismaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada degmada Maxaas shaqo la'aanta ku ahaa in muddo ah balse uusan dareemi jirin maadaama uu waqtigiisa ku bixin jiray isticmaalka internetka balse markii uu meesha ka baxay ay qaar ka mid ah saaxiibadii ay qayb ka noqdeen dagaalka ka socda degmada aageeda waxa uu tilmaamay in Farxaan ahaan uu ku dhawaaday inuu qayb ka noqdo dagaalka balse ay waalidiintiisa ka hor istaageen waxaana ku adkaatay xitaa inuu la socdo xogta dagaalka ee deegaanada in uu joogsaday iyo in kale maadaama uusan isticmaalin aaladaha baraha bulshada ay ku xiriirto sidaas darteedna uu isku arkay qof ku jira xabsi kor ka furan waxaan ka mid ah dhalinyarada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan marka waxa caqabad nagu noqotay oo aad noo saameeyay waxa ka mid ah isgaarsiinta hawada laga jaray shabaab ee naga jareen dhinaca internetka marka weyn waxa ka mid ah waxyaabaha isku mashquulno ka mid ahay marka internetka marka weyn waxyaabaha isku mashquulna weynay oo shaqo la'aan jirto dhalinyarada qaarkood dagaalada ku biireen kuwa qaarkoodna waa waalidiinta waxba u diiday way iska joogeen laakiin dhalinyarada qaarkood dagaalka ku biireen oo dhahin anigu kuwa iska jooga ka mid ah dhinaca waalidka ay la taliyay macnaha inaan aadin iska dhaaf aad ayay u mahadsan tahay waryaheena Shukri Baryare oo warbixintaas nala socodsiinaysay dhinaca kalena dagaaladii iyana ka dhacay gobolka Baay qaybo kamid ayaa la soo wariyay in saameyn ay ku yeesheen ganacsigii yaryar ee ka socday deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo dagaaladu ka dhaceen dadkii lahaa ganacsiyada qaarkood ayaa isaga soo cararay deegaanadooda si aysan waxyeelo uga soo gaarin rasaasta kuwaas oo hadda ku nool xerooyinka dadka soo barakacay ee ku yaala duleedka magaalada Baydhabo halka qaarkii kale ee ku haray deegaanada ay dagaaladu ka dhaceenna ay hoos u dhaceen macaamiishii wax ka iibsan jirtay kuwaas oo hadda wajahaya nolol aan wanaagsanayn Saciid Sabriye oo Baydhabo ku sugan ayaa ku eegaya warbixintan boqolaal qoys iyo ganacsatada yaryar yaa isku koroori deegaanka Saydheelow oo 40 kiiloomitir anjara magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ku dib markii meelaas ku dhii dagaal aan dhaxeeya ciidanka dawladda iyo ururka al-shabaab Cabdinuur Maxamuud Cabdi oo kumada ganacsatada yaryar ee deegaankaasi yaa sheegay in cobsad dartis on furuay goobtis ganacsi markii deegaankaasi ku bilowdan dagaalo wayba kale oo sheegay in dhammaan dadka ka nool deegaankaas iyo ku barakaan saas darteen usan waay qof walku gadada Cabdinuur oo lama haasla ya dagaalahan ku roodo dukaanka wayba ka dabar jiray nolol maalmeedka qoysay wayban hadduu eedan ku obsa qabe cidda ku aawi doonta nolol reershay wallahi dagaalka saameyn mani waladi waayo lamada dhinac bishacad oo ana wali bani room dibadani room mani rolan ma aragayna dawladda oo tawa dadka wadana okay hada fadhi dad la hadala korno hadalon ka korne hadma diiba hana diiba nara korne dantu wali bani ka sabaay ka tanti wadanka dhulka ku tabna waayo fikro baan lahayn walaa oo darajada kortaa la meeyo dhaadaayo korkaana lamada dhinac loo maraayo wala ka tilmaamo koroodo meeba nololna ka noolna nolol basta jirina ka noolna Noonay Maxamed Xuseen waa hooyada wayba ku midata dadka deegaanka Saydheelow oo ku barkay ku dib dagaaladii ku dhig deegaanka hooyo Noonay oo ganacsi yar eedan shal socday kala haytay deegaanka Saydheelow wayba Soomaan sheegtay in yaha ku tabti ganacsiga yaray iyo kala haytay deegaanka maadaama nafta sii waaytay in yakanagata deegaanka oo markasta
obso ku qabtay in mar kale dagaal ku dhig waybaya xustay in hadda nolol eedan ku liidatati hora iyo ka haysata kaamkiyaala gudaha magaalada baydhabo ti allana iyo ka noola balse waybaya rajaaya hayte in gadaalanka nagata nololaya hor oo eedan ku faylahayti tan iyo hadda ka noola aragday saydheelo waxa ku barakani walaa dagaal eenay gali mash'uula eedninka furumi mash'uulki isugahay hangegsud wayni beerogina abaarana gadeen habani anta koyni inti koynin hatu wal qaable una helni malle biyo antan roor awlaada oomanta gaboymada kardhigaali wal dhan kasha guruga saaslay nagani hatana roobaha maalid may fadahayne balaaska wal dhan wal ka dhagada ee fadaan ilaahay ku rajiyahay wala gadnaasadaay ganacsato oo karka gadaaso ilaanka gadaaso dareera soo beesodiye shableehay hatahe leesa igalay walba miskahay ayaa shangahay arikay ana dhali yada dhali dameera ka kooyne malaa'ika maxamed cabdiraxmaan oo yeen hooyo haysta 9 onog oo aan iska jara wiilal iyo gabdho way bayay maqaahi laga kariyo cuntada nugul way bayaan ku furnaaytay deegaanka Saydheelow taas oo ya kamaaray jirtay nolol ciyaalshe way bayay sheegtay in meheradii ka hirnaayeen dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka ka safro wadada oo hay haan ka badan maalin walba walku gadada jari laakiin hadda way bayay baraka keeta baydhabo ma jarta waliya hiligan gacanta ka hayta way baniye wajahayte dhibaato adag oo dhinaga nolole way bayay ku codsatay heedaha gargaarka inuu ku caawiyan sidii gadaalanka bilaaw lahayti ganacsigii yaraay ee haysati amiinadu bamayl raay banaanka jiifadaan hat walaawn dhisadaan isan aragahayta hata meel galna mayl raay dadka mayl raay walaalka garabna siiyeen wal mushmushe lahayn koosi hata dhisadaan adayb aragahay nafal nagati oo dhan awlaadeen garaabaday mugaayidii waabsaba nagatay no FFT walona kanagadaan hooba aragna wadankaana buu nagadaan ona dhan wada bane mayl raay sabadbadad ka dareerte anta lirugi gooska dhan ka bane nasiib may rugi afar beriiro geeka afarta ee sidamiinga binaan barin hata han dhisadaan adayban aragay mayl raay islaadalaane laakiin yoob mayl raay naftatiidiyo nafaku gaalib lesi fayla mahadalaayaan telefoonayba isku dadansada weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya ugu dambeynna dhageystayaal dadkii ka soo carray abaaraha ka jira qaybo kamid ah gobolka Gado ee deegaansaday xirooyinka dadka soo barakacay ee degmada Baardheere ayaa helay haamo ay biyo ka dhaansadaan halka markii hore ay u socdaali jireen qiyaastii 40 kiiloomitir kumanaan qoysas ah oo ka faa'iideystay mashruucan ayaa aad uga mahad celiyay hirgelintiisa iyaga oo sheegay in uu ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa in biyo dadku ay helaan Ahmed Umar Saalixi oo Baardheere jooga ayaa nooga soo diray warbixin ku aadan 3500 oo qoys oo barakac ku ah ilaa 2 xire ee ku yaala duleedka degmada Baardheere gobolka Gado ayaa markii ugu horeysay horaantii bishan Oktoobar ee sanadkan loo sameeyay haamo iyo firishyo ay biyuhu ka dhaansadaan qoysaskan faraha badan oo intooda badan xiriyaha barakaca degan ayaa tan iyo sanadkii la soo dhaafay waxay deegaanadooda ugu soo barakaceen abaaro waxay biyaha ka aroorin jireen webiga Jubba oo xiriyaha u jira ilaa 4 kiiloomitir iyadoo mararka qaarna la kulmi jiray dhibaatooyin xagga halista biyaha webiga xiriyaha barakaca ee loo sameeyay biyigelinta ayaa kala xirada ugu weyn ee Iftiin oo ay degayiin kumanaan qoys iyo xirada kale ee Ritaanis oo ay degayiin boqolaal qoys oo ku barakacay abaarta kuwaasi oo ka kala yimid deegaano ka kala tirsan gobolada Baay, Gado iyo Jubbada Dhexe. Aamine Isaaq oo degan xirada Kaam Iftiin waxay ka mid tahay qoysaska helay biyaha. Barnaamijka wadaagga ayay u sheegtay in maalintii 10aad ay caabayso biyo nadiif oo xirada loogu geeyay. Aamine oo qoyskooda ku kooban yahay ilaa 8 ruux ayaa waxay ka mid tahay qoysas ka soo barakacay abaarta sanadkii 2021 ka dhacday deegaanka Gurbaan oo ka tirsan degmada Diisoor ee gobolka Baay. Ilaaha mahadle gargaar waaga hor biyo waysanayna biyo helnay hadda alxamdulillah kaamka Iftiin weena waraab helnay lima qomno ilaahay maadiis walbadan isku rajayeen hoo ilaahayna deersiyo insha Allah taala saas rajayna ba macna dadka xoolo ka dhamaadaya kamid ina hadda barakacyaalena biyo walba helnay hadda ilaahay maadiis war nooma qomale kool walbadan isku rajayna
هو إلهي ده هو بس إلهي فضل ويلدون هو إلهي ده إن شاء الله تعالى حد ميلا معنا بيه اللي إلهي مهديسو والله هلاينا هو إلهي نديرسي ساسر جاينا كي تمن إلا مو عيالكي قربان أفربريا كجرني عيالك له ودن بيلاس كوغو باني ميس حولو قدام عدن حول من النول baraagaha iyo firashada la sameeyey ayaa waxay biyaha ka soo qaadaan haamaha oo ka soo qaadaya matooro webiga jiinkiisa la saaray iyo tubooyin lagu xariiriyey waxaana haamaha lagu shubay biyo safeeyaha koloriinta waxaana xero walba la siiyey haamo iyo 2 baraag oo biyaha kaydinaya xasan cabdi aadan waxa uu ka mid yahay dadka degan xerada barakacay Ritaanis ee ku taala duleedka koonfureed ee degmada Baardheere waxaana uu ka mid yahay qoysaska faraha badan ee ka faa'iideystay biyaha gelinta laga hirgeliyay waxaana uu sheegay inuu ka mid yahay qoysas 2 sano ka hor ka soo barakacay miyiga tuulada Faanweyn oo ka tirsan degmada Garbaare ee gobolka Gedo kadib markii xoolihii ay dhaqanayeen ay ku baaba'een abaartii taagneed xilligaasi xasan oo 55 sano jir ah wuxuu qoyskiisa uga kooban yahay ilaa 13 ruux waxa uu sheegay in abaarta uu ku waayay 97 neef oo ari ah 21 neef oo geel ah iyo 7 neef oo lo ah taasi oo ku kaliftay in qoyskoodu degaan xiriyo barakaca waxaana uu sheegay in noloshoodu hadda ay ku tiirsan tahay $2 oo maalintii uu ka helo hooyada reerka oo dhaqaal ka shaqeysa neew hadda nolosheena biyaha horta nooga qaalsanaa alxamdulillaah rabbil caalamiin biyihiin hadda waan helnay xaalada Ritaanisna markaan nahay oo barakacaasha degan iyo odayaasha oo meesha ku nool alxamdulillaah rabbil caalamiin biyaha horta waa hadda aad baan ugu nasteexa qabnaa neew wax badan baan dareemaynaa awal hore webiga oo 4 kiiloomitir noo jiro ayaan macnaha ku nooleen oo halis aan marmar aan ugu sugnayn caruurtii haweenka markaan u dirnaa ta dhowr jeer ay halis ku gaareen adii alxamdulillaah hadda biigilin baan loo sameeyay aad baan hadda ugu nasteexa qabnaa hadda aad baan hadda ugu wanaag qabnaa neew waxaan ka mid dhinacaan iyo miyiga Faanweyn ayaan ka soo barakacay xoolihi meesha nooga baaba'ay oon iyo haraad xaladan Ritaaneska ayaan lagu soo dhaweeyay meesha hal sano iyo baro kale hadda aan degannahay xoolihiina naga dhamaadeen oon iyo haraad baan hadda u soo caarnay alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda xalada Ritaaneskan ku sugannahay mashruucan biyigelinta ee dadka ku barakacay abaarta ay baahi weyn u qabaan ayaa waxa xiriyaha barakaca ay ku yaala duleedka degmada Baardheere ka hilgeliyay ururka samafalka Saado oo taageero ka helaysa hay'adda Oxfam Cabdinaasir Cali Cabdi oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka samafalka ee Saado ee degmada Baardheere ayaa sheegay hay'adoodu markii ay arkeen dhibaatooyinka dhanka biyaha ee ay qabaan barakacayaasha in biyigelin ay u sameeyeen ilaa 3500 oo qoys oo ku ceertoobay abaarta isagoo sheegay baahida dhanka biyaha ee ay qabaan barakacayaasha in aysan wada dabooli karin xilligan balse ay ku dadaalayaan sida ugu habboon ee u saacideyn karaan dadka ku barakacay abaarta ee degan degmada Baardheere bishii July baa Saado iyo Oxfam hay'adda la dhaho waxay iska ayagoo kaashanaya lacag ama budget laga helay hay'adda Sida waxay iska kaashadeen in ay sheego ka jawaabaan baahida biyarida ee ka jirto Camp Iftiin Allahu musta'aan waxa lagu guuleystay in la dhiso 5 frish ama waxa loo yaqaano water kiosk oo mid walba leh 6 tab ama 6 rubaneeto oo halkii marba ay ka dhaansan karaan 6 qof runtii frishkaas waxaa ka faa'iideystay tira gaaraysa ilaa iyo dad 3,000 qoys oo ku dhow baa ka faa'iideysta ilaa iyo hadda hand overingkiisa ama xilwareejintiisa waxaa la sameeyay 12kii bishii August bay dadku dhaansan doonaan biyo free ah hay'adda Saado iyo Oxfam waxay qorsheynayaan in ay hadda sii dhisaan kambanigii howshaas waday ay sii dhisaan wax la yiraahdo solar system oo u suurtagelin doona inay biyahay ay dadkii u sii socdaan ilaa iyo muddo sanad ah gudiyadii iyo waxay noo sheegeen in maalin walba meeshaas la geyn jiray 16 booyad oo hadda uu hoos u dhacday booyadihii ilaa iyo 8 la geynayo marka waxaad moodaa in 50% ay dabooleen biyahaas hadda Saado iyo Oxfam ay iska kaashadeen insha Allah inta kalena waxaan rajaynaynaa in solar system kaas hadda on process waaye waa la approve gareeyay wuxuu marahayaa insha Allah advertisement ayuu marayaa waana la gelin doonaa insha Allah marka waxaan sii rajayn doonaa in aan sii daboolno 50% kaas annagoo kaashanayna hay'adaha fanka bixiya ee donorska
insha allahu inta kalena waxaan rajaynaynaa inaan sii daboolno xaqiiqatan waayo guddigii baa waxay noo xaqiijiyeen in maalin walba 16 booyad la geyn jiray haddana ay 8 ay geynahayaan oo maalintii. axmed cumar saalixi, barnaamijka wadaagga sooma, Baardheere. intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma. waxaanse dhagaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha ah sidee ayuu saameyn kuugu yeeshay dagaalada ka socda qeybo ka mida gobolada dalka. nala wadaag aragtidaada iyo su-aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefanada idaacadan. mahadsanideen.